gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Mudan Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Injineer Yariso iyo gudoomiyaha guddiga madax banaan ee doorashooyinka qaranka ayaa si wada jir ah xariga uga jaray xarunta cusub oo yeelanay guddiga madax banaan ee doorashooyinka qaranka ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya iyadoo ay goobjoog ka ahaayeen hay'adda UNOPSO oo horgelinaysa mashruuca dhismaha xarunta isla markaana loogu talagalay in loogu adeego shacabka Soomaaliyeed ayna muhiim tahay in guddiga uu helo xarun uu ku shaqeeyo maadaama ay u yeelaan howlo badan taasoo ah in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod marka la gaaro 2020 madaxa mashruuca hay'adda UNOPSO oo fulinaysa dhismaha ayaa sheegay in tani ay qayb ka tahay horumarka ay ku tilaabsanayaan dawladda Soomaaliyeed iyo shacabkeeda gudoomiyaha xisbiga midnimada jamhuuriga Maxamed Nuur Timajilic ayaa ku bogaaday guddiga shaqada ay hayaan loogana baahan yahay inay hor u socdaan guddiga doorashooyinka madaxa badnaana aad baan ugu hambalyeynaa sida ay hawshooda u wataan sida ay dadka la tashiyada ugu sameynayaan dibadda iyo gudahaba waxa weeye waxaan leenahay aad baan u mahadsantihiin halka ka sii wada gudoomiyaha guddiga madax banaan ee doorashooyinka qaranka Xaliime Ismaaciil Ibraahin Xaliime Yarey oo iyadana ka hadashay munaasabadda xarig jarka ayaa ugu mahadcelisay dawladda Soomaaliya oo dhulka siisay sidoo kale waxay sheegtay inay fududeyn doonto howlaha loo egmaday gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Mudan Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Injineer Yariso ayaa xusay in sidii doorasho uga dhici lahayd dalka looga baahan yahay in guddigu helo meel ku habboon si uu u qabto shaqo hufan guddiga madax banaan ee doorashooyinka qaranka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa hadda ku shaqeeya xarumo ku meel gaar ah hase yeeshee xaruntan ayaa wax badan ka bedelan doonta marka ay dhamaato dhismaheeda shaqada adag uu guddiga u hayo shacabka Soomaaliyeed Cabduqaadir Cali Axmed warbaahinta qaranka Muqdisho